qisadii jacaylkii iyo qaybtii afraad naftu naf ayaa rabto naftuna naf kale ayay rabtaa naftaydu nafay rabtaa naftuna naf kale rabtaa wadnaha nabarba ku yahay jacaylkana wuu nuglahay naxusubaha igu habsaday dashaadkiigu la tagay naxusubaha igu habsaday dashaadkiigu la tagay niyada samir baan ku samir baan ku yiri nacam ay mawdan nasiib lama dhaafay adduunka nagaaday meel nabado lagu nastiyo nasiibaane bahay kasugi nimcabaane bahay kasugi madafay adduunka nagaaday meel nabado lagu nastiyo nasribaane bahay kasugi nimcabaane bahay kasugi ayaa dib kaga meelacsan doontaa sheekadaada si fiican kaga bogato waxaa la gaaray waqtiga Zainab aabaheed laga saari lahaa hospitaalka balse kuma uusan farxin Cabdiraxmaan waayo ma wada joogi doonaan haddii hospitaalka laga tago hase ahaatee Zainab hooyadeed ayaa timid tuqina waa la waday si lamid Cabdiraxmaan waa uu raacay oo guriga ayuu la tagay kadib Cabdiraxmaan waa uu xishooday wuxuuna ku yiri Zainab waan sii tagayaa macsalaamu Zainab ayaa isbedeshay oo ku tiri mad xoga ilisi joogtid waa uu ku faraxay balse waa uu ka diiday wuxuuna ku yiri maya hadda baahi ima qabtid waxaana dareemayaa waajibka saaxiibtinimo in aan gutay waa uuna ka dhaqaajiyay dhanka kale waxaa xanuunka maqlay Zainab adeerkeed waa uuna yimid hase ahaatee waxaa la socotay gabadhiisa lagu magacaabo Raxmo waa la soo dhaweeyay Zainabna kuma jirto dhanka familka waayo waxaa maskaxdeeda ka dhex guuxaya siday kula kulmi lahayd Cabdiraxmaan iyadoo ku fikiraydo inay wacdo ayaa durbaba Cabdiraxmaan soo wacay teelkeedii waxauna u sheegay in uu doonayo in uu arko balse uu guriga ka xishoonayo way ka diiday oo waxay ku qasabtay inuu xaafadda yimaado asagana qalbi wax jecel ayaa ku xariiro oo uu ka diidi waayay uuna imaaday wuxuuna u sheegay inuu albaabka joogo waxayna ku tiri abowe abay ayaa albaabka ka furaydo ee soraac uu la yaabay uuna ka ogolaaday Raxmo ayay ku tiri Zainab saaxiibka ayaa albaabka joogay orod soo kaxay Raxmo ayay ku dhahday isla durbaba dhankii albaabka ayay abaartay wayna soo kaxayday
inankii Zaynab iyo Raxmo ayay si fiican isku bartay. Zaynab iyo Raxmo ayay si fiican niraadi Cabdiraxmaan iyo Raxmo ayay si fiican isku bartay Zaynab. Isla markiiba way isfahmeen oo waa wada kaftameen. Hase ahaatee Zaynab ayaa Cabdiraxmaan gacanta qabatay oo gooni ula baxday, wayna wada sheekaysteen. Sheeko dareen leh ayaa dhex martay, waayo qalbiyadooda ayaa isku soo dhawaanayo. Balse ma aaminsana Zaynab in wiilkan jacayl uu qaaday oo mar waliba saaxiib ayuu agteeda ka yahay. Dhanka Raxmo, doon caashaq ayay darawal ka tahay oo wiilka jag ayay ku noqotay oo jacayl daran ayaad u qaatay. Waa tahay la soco qaybta xigta, Laxar sina sheer gareeyay. loo garay sidoo kale YouTube-kana subscribe